Assalaamu calaykum. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle kaga qayb galay salaadii janaasada Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riisow daaradii siday marxuumkan shahiiday isagoo ka shaqeynayay horumarinta iyo dibadhiska dalkiisa ayaa markii ay soo caga dhigatay garoonka waxaa naxashka haliyay gan ka soo dejiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaadayay saan murugaysan. Madaxweynaha ayaa markii ay soo idlaatay salaada janaasadu waxa uu si gaar ah ugu tacsiiyay qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen janaasada isagoona alle ugu baryay samir iyo iimaan marxuumka jannatul firdaws inuu la waraabiyo. Intaasi kadib cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa marxuumka aas qaran ugu sameeyay dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen gudoonka labada aqal baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida duubabka dhaqanka ehelada marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shacabka Soomaaliyeed waxa ay xasuusanaan doonaan dadaalkii dawlad jaceylkii iyo doorkii muuqday ee Injineer Riisow uu ka soo qaatay samata bixinta nabadeynta iyo dibadhiska dalka. Waxa uu marxuumku tusaale u ahaa malaayiinta Soomaaliyeed oo u taagan adkeynta midnimada, xaqiijinta cadaaladda iyo dib u soo noolaynta maqaamkii aynu ku lahayn dalalka caalamka. Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riisow waxa uu ku dhashay degmada Hodan ee gobolka Banaadir 16 August 1965. Waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School isagoo sidoo kalena ka qalin jabiyay jaamacadda Gaahir kulliyadda Civil Engineering sanadkii 1986. Shaqooyinkii uu soo qabtay dawladda hoose ee London intii u dhaxaysay sanadii 2000 ilaa 2003. Shirkadoonka kooxda Somali Concern Group intii u dhaxaysay May 2004 ilaa October 2008. Waxa uu noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ahayd intii u dhaxaysay October 2008 ilaa February 2009. Waxa uu noqday agaasimihii maamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhaxaysay February 2009 ilaa August 2009. Waxa loo magacaabay wasiirka lacagta dawladda ku meel gaarka ahayd isaga oo xilkiisina hayay ilaa July 2010. July 2010 waxa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo qanuuninta dadweynaha dawladda ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa December 2010. 3 December 2010 waxa loo magacaabay la taliye sare oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo afhayeenka dawladda ku meel gaarka ahayd isaga oo xilkaasina hayay ilaa 19 June 2012. 20 June 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isaga oo xilkaasina hayay ilaa 25 April 2013. 26 April 2013 waxa loo magacaabay la taliye sare iyo afhayeenka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isaga oo shaqadaasina hayay ilaa 23 April 2014. intii u dhaxaysay 24 April 2014 ilaa 21 March 2017 waxa uu ahaa la taliye sare oo dawladda Soomaaliya kala taliya warfaafinta iyo isgaarsiinta. 21 March 2017 waxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya. 21 January 2018 waxa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxa uu ifka uga tagay 7 caruur ah, 2 wiil iyo 5 gabdhood. Taariikhdu markay ku beegneed 1 August 2019 ayuu ku geeriyooday magaalada Doha ee dalka Qatar. Rabbiyow Soomaaliya iyo Soomaalida isjeclaysi. Waxaad nagala socoteen Rajada iyo Maanta. Hadaad ku cusub tahay channelka Rajada iyo Maanta, subscribe sidoo kale gambalaalka riix si aan ku soo gaarsiino muuqaalada xiga. Mahadsanid.